السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب رياض الصالحين إمام النووي رحمه الله وسوق بنية شرح الشيخ شريف عبد النور رحمه الله. hoos waxaad ka helaysaa linkiga kitaabka oo carabi ah asoo Soomaali ah iyo asoo English ah, marka kala soc halkaas kana faa'iidayso. Waa kitaab aan ku gaabinayo qof kastoo muslima ah inuu kitaabkan uu barto ugu yaraan. السلام عليكم ورحمة الله. وصحيح قيبنا وضعيف. قيبته هوري دهيسا رسولك صلى الله عليه وسلم wuxuu yidhi qofku markuu afuraayo timiraha ku afuro hadduu waayana biyaha ku afuro taasu daciif way qowl ahaan daciif bay u tahay, laakiin ficil ahaan bay iyaduna saxiix u tahay u sugan tahay oo rasuulku sala allahu alayhi waali wasalam marka uu afuraayo muxuu ahay biyo inuu ku afuri jiro horta timir hadduu timir waayana wuu biyo ka kaban jiray. taasu iyadu waa jirtaa, waa saxiix, laakiin lafdigan kadaa inuu sidaa amray nebigu sala allahu alay wasalam kaas ayaa wuxuu leeyahay daciifa oo daciif aljaamic الصaغيir iyo mishkaat almasaabiix iyo saxiix ibnu khusayma intaas ayuu ku sheegay oo uu ku daciifiyey sheekh albani. laakiin haddana isaguna mid kale oo riwaayatu anas ah ayaa jirto oo inuu yihi nebigu sal ly slam man wajada tamran falyuftir calayhi waman laa falyuftir bilmaa'i faina alma'a tahuur. kaasa marka isaguna jiro oo isaguna amar ah. marka xadiidkan kaasirana waxaa wariyey النسائي والترمذي والحاكم عن أنس وابن خزيمة iyo طبراني في الصغير iyo isaguna ku wariyey عن سلمان بن mxuu ahay سلمان الفارسي. marka waxaa weeyaan xadiidka kolay matnigiisu صaxiix weeyaan oo wuxuu ku saxiix yeelay في إrواء الغليل iyo صaxiix الترغيب والترهيب. xadiidka marka amarkaa kolay ku tahay isagoo naftiisu matni ahaan waa u saxiix, laakiin riwaayadantada ayaa iyadu dacfi uu ku jira. ama intan tada dambe ee dhahaysa sadaqada miskiin lagu sadaqaystay taas iyadu marka saxiix weeyaan. wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala kaanat taxti imra'atun waxaan qabay wax hoosteyda ku jirtay marka lafdigu noqonaya, laakiin taasoo kale waxay ugu isticmaalaan qabitaanka. halkan kan yidhaahno heblaayu qaba ama waxay yidhaaheen taxtahu fulaan aw taxtahu bintu fulaan, haweeney baan qabay wa kuntu uxibuhaa waanan jeclaa wa kaana cumaru radia allahu canhu yakrahuhaa. aabbahay cumarna wuu necbaa faqaala lii طalliqhaa fur buu yidhi faabaytu waan diiday. faأtىa cmaru radي allahu canhu الnabiya salى اllahu عalayh wali wasalam. cumar baa radi allahu canhu u tegay nebiga sal ly slam oo fadakara dalika lahu arrintaasu u sheegay. faqaala nebiyu salى اlه alay slam nebiga wuxuu yidhi salى اllahu عalayh wali wasalam طalliqhaa fur buu yidhi. rawaahu abu daawuuda wالtirmidiy wa qaala صaxiixun xasanu صaxiix ayuu xadiidku waa صaxiix weeyaan oo sheekh مqبل الwاdعي في kitaabkiisa صحيح المسند la yidhaaho xasan buu kaga dhigay. وعن أbي الدرداء رضي الله عنه أن رجuلا أتاaه فqاaل أبودرداء buu nin u yimid oo markaasu wuxuu yidhi إna lii امرأة وإنii أuriidu وإna أmii تأmurنii بطلاaqha. xadiidka أبودرداء kii ka horeeyey xadiidka iبن cمر ahaa. الشheekh الwaadiعي isagu waa xasan weeyaan buu leeyahay, laakiin الsheekh الألbani صaxiix buu ka dhigay. marka xadiidku صaxiix weeyaan in shaء allah sida sheekh الألbani uu sheegay tirmidina uu uga horeeyey weeyaan xasanu صaxiix. وعan أbi الdرداء radي allahu canهu أna rajuلا أtaahu faqاal إna lii امرأaةan haweeney baan leeyahay وإna أmii تأmurunii بطalaaqihaa hooyadayna waxay ifaraysaa inaan furo. faqaala markaasu wuxuu yidhi samictu rasuula الlahi salى الlahu عalيه walي وsلم. abu darda radi allahu canhu fur ma aanu dhihine wuxuu ugu fidyooda ugu jawaabay
xadiidkan soo socda oo waalidka ahamiyadiisa ka hadlaaya. marka taasna macnaheeda waxaa laga garanayaa waalidkaaga raalligeli inuu leeyahay waxay ku yeelaysa say ku amrayso yeel. markaasu wuxuu leeyahy waxaan ka maqlay rasuulka sal ly slm yaquulu oo leh alwaalidu awsatu abwaabi اljanna, waalidku waa jannada albaabadeeda ka ugu fadli badan. awsat yani afdal weeyaan. fain shiئta faaطic dalika albaab aw ixfadhu. hadalkan fain shi'tada inta ka dambaysan abudardaa baa wata. waxaan ka maqlay nebiga sal ly slm oo leh jannada albaabadeeda waxaa ka ugu fadli badan waa waalidka, yani waalidka shay jannada lagu galo sab lagu galo buu ugu ahamsan yahay. marka adu haddaad doonto albaabka iska dayac, haddaad doontana ilaasho albaabkaas ku furaado oo hooyada ka xanaajinin. rawaahu التirmidiي وqaala xadiiث xasn صaxiix. waana sidaa uu sheegay xadiidku صaxiix weeyaanoo sheekh األbani صaxiix الjaamiع الصغير iyo صaxiix ibn maaja ayuu labadaba ku صaxiix yeelay. marka labadan xadiidba waxaa laga garanayaa ninku haddii uu waalidkii ama aabbahaada ama hooye ahaada hadduu naagtaada furi yidhaahayo inuu aطeeco inay waajib ku tahay. waxaa tantadana lamida nebi ibraahim salى اllahu عalayhi waalihi wasalam markii uu muxuu aha wiilkiisi ismaaciil ahaa haweenaydiisii markuu soo maray ee uu wareystay ee calaacashay marka waa kii kula dardaarmay inuu furo, isagana waa furay. ayb laakiin bishardi kolkaas waxaa weeyaan waalidkaas waalid faasidaho haweenaydaa wuxuu u fur leeyahay aana ahayn wax muxuu ahaayey isaga uu ku qalloocan yahay iyaduna ay ku xun tahay, iyadoo ku fiican tahay aan ahayn. sidaa kuwaa laga sheegaa gabdhaha jilbaabka qaatay iyo wiilashooda markay guursadaan idaa naagtan isdadaboolaysa iga kaxeeyo muxuu amaanay dooro ama iyada dooro. kaasoo kale marka wixii naagaha lagu jeclaan lahaa oo tadayunkii ahaa yuuba ku nacaya. marka kaasoo kale isagaa faasid ah, isaga kaas marka waa macsiya. dalaaqa noocaas oo kale ahee qofka loo furo muxuu ahaay asturkeeda iyo xijaabkii alla faray oo qaadatay marka macsiyada taasana waalidka laguma aطeecayo. wa can الbarاء بn caazib radي allahu canهuma can الnabiy sal ly slm qaal alkhaalatu bimanزilaة اlأm. rawahu tirmidiy wa qaala xadiiثun xasanu صaxiix. hooyadu halkii habaryartu halkii hooyaday joogtaa oo marka sidii xuquuqdii hooyadu ay lahayd xaggii xanaanada ilmihii walaasheed ay dhashay iyo iyadaa ku xaqleh haddayna hooyadeed ay dhimato. birigii hooyadu ay lahaydna waa leedahay. haddii muxuu ahaaye wax ka xiga aanu jirinna qofka ay habaryarta u tahay waa dhexlaysaa si hooyadu bay u dhexli lahayd. suduskii hooyadu qaadan lahayd oo kale iyaduna qaadanaysaa. wa qaala xadiiثun xasanu صaxiix. waana sidaa uu sheegay oo xadiidku waxaa weeye xasanu صaxiix weeyaan. waana xadiidku isaga oo muttafaq calayhi ana waabuu jiraa oo lafdigaas ku soo arooray oo qiso lahaa. qisadaasuna waxay ahayd gabadhii xamza uu dhalay ayaa soo raacday nebiga sal lla alay slam markii uu ka soo noqonayay xudaybiya cimrat lqada uu ka soo noqonayey. markaasaa waxaa ku tartamay oo anaa qaadi yidhi cali iyo jacfar iyo mxua zayd ibn xaarisa radi allahu canhu mid waliba anaa korinayo uu yidhi radi allahu canhum ajmaciin. markaas wuxuu u xukumay nebiga sal ly slm jacfar buu xukumay oo habaryarteed buu qabay oo markaasuu yidhi habaryarta waxay meeshii hooyaday joogtaa. saasuu isaga ugu xukumay. wa fi lbaabi axaadiidu kahiiraة fi صaxiixi mashhuura. baabkan kada oo qaraaba xidhiidhinta iyo bir lwaalideynka axaadiid fara badan oo saxiixeynka ku jirta oo mashhuura oo la yaqaana ku jira. minhaa asxaabu اlgaar, xadiidu asxaabi اlgaar, saddexdii nin oo godka uu ku awdmay xadiidkoodii baa ka mid ah oo marka muxuuha midkood uu berigiisii markuu alle ku baryey alla uu ka aqbalay. waa xadiidu jurayj waqad sabaqa. jurayj qisadiisa isagana ka mid ahoo hooyadii markii uu fudaydsado salaada uu ka doortay waa kii habaarkeedu ku dhacay. waqad sabaqa labadubana waa soo horumareen. ayb wa xadiidu waxaa ka mid isagana wa axaadiidu mashhuuraة fi صaxiixi xadaftuha اkhtisaaran. wa min ahamiha axaadiidta inta ugu muhiimsanna waxaa ka mida xadiidu camr bni cabasa
السلمي رضي الله عنه الطويل المشتمل على جمل كثيرة من قواعد الإسلام وآدابه وسأذكره بتمامه isagoo dhan oo buuxa ayaan sheegi doonaa in sha allahu tacaala fii baabi الrajaa wa qaala fiihi wuxuuna ku yidhi baabu الrajaa buu ku sheegi doonaa isaga oo lambarkiisu uu yahay 438 ayuu halkaasu ku sheegi doonaa lambarkaas. markaasna waxaa ka mid ahaa qidcu hadda uu soo hormarinaya wuxuu leeyahay dakaltu cala الnabiy sal ly slm bimaka makaa nebiga ugu soo galay sal ly slam yani fi awali nubuwa nebinimada markii ugu horraysay ee bilow ay ahayd faqaala lahu faqultu lahu waxaan ku idhi maa anta adigu maxaa tahay qaala markaasuu uhi nebiyu nebi baan ahay qultu wamaa nebi nebina maxaa la yidhaha ma ayna aqoonin muxuu ahayey waa niman jaahiliyiin oo nebinimo iyo risaale iyo ay aada uga daahday bay ahayd litundira qawma ma ataahum min nadiirin min qablika alla waa kuu yidhi weeyaan marka waxa weeyaan nebi maxaa la yidhaha bu nebi xataa wax la yidhaha maanu maql mauna aqoon qaala arsalani allahu tacaala allah i soo diray qaala biأyi shayin arsalak muxuu kugu soo diray qaala markaasuu yihi arsalanii bisilati اlarxaam wa kasri اlawthaan waan yuwaxad allahu laa yushraku bihi shay in qaraabada la xidhiidhiyo oo asnaamta la jajabiyo oo alla keligiisa la caabudo oo waxba loogu shariig yeelin wadakara tamaama alxadiid xadiidka dhammaystirkiisiina waa uu sheegay wallahu aclam. baabu taxriimi alcuquuqi wa qatiicati araxim caaqnimada caasiwaalinimada yani weeyaane xaaraamaynteeda iyo qaraabagoynta xaaraameyntooda waa baabkii kankada ka horreeyey muxua cagsigiisii weeyaan. qaala allahu tacaala fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi اlardi watuqaطicuu arxaamakum ulaa'ika aladiina lacanahum allahu faasamahum waacmaa absaarahum waan soo marray aayadda waqaala tacaala waladiina yanquduuna cahd allah kuwa alla uu eedanayay buu le waladiina yanquduuna cahd allah iyo kuwii burinayay ballantii allah min bacdi miihaaqihi adkayntiisa dabadeed cahdigaasoo la xoojiyey oo dhaar iyo markhaati iyo wax la mida lagu xoojiyey dabadeed kuwa goynayay wayaqtacuuna ee goynayeyna ma amara allahu bihi an yusal wixii alla u faray in la xidhiiriyo oo qaraabanimadan ay ka mid ahayd wayufsiduuna fi lardi dhulkana fasaadinayay oo macaasida iyo balaayada ku fasaadinayay muxuu ahayey macaasidaas oo ama ha ahaato muxuaha shuftanimo iyo dhac iyo budhcadnimo iyo ha ahaato ama macaasi kale ha ahaato oo gaar ahaan dhacidda dadka lagu dhaco beegga iyo miisaanka iyo waxyaalaha lagu dhaco iyo ay ka mid yihiin ulaa'ika aladiina lacanahum allah kuwaasu waa kuwa ulaa'ika lahum allacna walahum su'u daar kuwaasu naclad bay leeyihiin daarta ugu xun oo naartaana way leeyihiin kuwaas sidaas yeela intaas ku dara wa qaala tacaala waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalidayni ixsaana إma yblغna cindaka اlkibara axaduهma aw kilaaهma falaa tqل lahma أf وla تnharهma وqل lahma qwla karيima واkfid lahma جناxa الذل min الرحمة وqل rb اrxmهma kama rabyaani صغيr aayadana waa soo maray. وعn abi bkra نufyc bn الxاariث الثqفي radي الله عanهu qaal qaala rasuulu الlahi slى الlه عlيه وaلي وsلم alaa uنabiئkm بأkbar الكabا'ir miyaanan idinka warramaynin dunuubta waaweyn inta ugu waaweyn. ثaلaaثa saddex goor buu sidaa ku celceliyey. qulnaa balaa yaa rasuula allah qaal alshraaku biاllah waa alla oo loo shariig yeelo wa cuquuqu lwaalidayn labada waalidku casigarowgooda wa kaana muttaki'an waa jiqilaysnaaye fajalasa waa soo fadhiistay faqaala markaasu wuxu uhi mid dantada markuu joogu aad u daryeelay oo iyada waa soo fadhiistay intii hore isagoo iska jiifay markaasuu ku celcelinaya markaasuu wuxuu yidhi alaa wa qowlu الzuuri wa shahaadatu الzuur war hooyaay iyo hadalka beenta iyo markhaatiga beenta ah famaa zaala yukariruhaa ma aanu ka zuulin inuu tantada ku celceliyo xataa qulnaa ilaan ka nidhi laytahu sakat alloma iska aamuso isu dhibaaya uga naxariistaan. muttafaqun calayhi xadiidkan kadana marka waan mar laba buu soo noqon doonaa raqam 1550 buu kusoo noqon doonaa. marka waxaana aad uga muuqata rasuulku salى الlaه عalيه wali wasalam inuu aad iyo aad markhaati beenaalaha uu u adkeeyey oo kuwii kale
si aanu uga hadlin iyaga uu uga hadlay. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الكبائر الإشراك بالله الكبائر duنuubta waaweynu waxa weeye alإشhraaku biالlah alle oo loo shariig yeelo waa kow وعquuq الwaalidayn labada waalidoo lagu caasi garoobo waa laba wa qatlu النafsi naf oo xaqdarre lagu dilo nafta la sheegay qofka naftiisa un ma ahee nafta macsuumad oo dhan weeyaan ama tiisa ha ahaato ama tu mu'min ha ahaato ama tu mucaahad ha ahaato ama mid musta'man ah gaal ama nabadgelyo la siiyey iyo mu'min iyo naftooda oo la dilo weeyaan oo xaqdarrana lagu dilo. walyamiinu alghamuus iyo dhaarta muquurisada dembiga qofka dhex muquurisa ama naarta muquurisa isagaana fasiri doona rawahu albukhaari. kuwaasaa marka kabaa'irta ah marka kabaa'irta kuwaa weeye markuu leeyahayna ugama qasdaayo tira koob oo kabaa'irta inuu intaa keliya ku koobo ugama qasdaayo. kollayba waxaa la ogyahay waxaa weeye dunuubtu inay kabaa'ir iyo saqaa'ir u qaybsanto kabaa'irtuna ay sii kala waaweyntahay iyaduna marka calaamooyin lagu garto ayay u sheegeen culammadu mooyaane wax tiro ahoo kooban ma ay jirto. xadiidka 7 ka sheegay iyo ka 9 ka sheegay iyo mid waliba amhila inuu ka sheego unbuu u qastaayaa mooyaane intaa kuma koobayo. ibnu cabbaas mar la weydiiyo oo la yidhi kabaa'irta miyayna 7 ahayn wuxuu yidhi hiya ila 700 aqrab 700 inay noqotay bay u dhowdahay. marka wuxuu yidhi alyamiinu alghamuus waxaa weeyaan alatii yaxlifuhaa midda uu ku dhaaranayo kaadiban caamida isagoo been sheegaya oo una qastayo inuu been ay tahay garanaya. sumiyad ghamuusan ghamuus baa loo bixiyey liannaha taqmisu alxaalifa fi lismi waxay tiimbisaa qofka beentaa ku dhaartay bay dembiga dhex tiimbisaayoo aada u muquurisaayo markaasaa ghamuusaasaa loogu bixiyey. marka qofkii haddii uu dhaaranayo isagoo run waxaan inuu yahay u malaynaya isagu kaasu dembi maaha waa gef khata alla dhaafay weeyaan. marka laakiin isaga oo muxuu ahay been sheegaya oo garanaya oo aan muxuu ahay aan wax ku dirqayna aanu jirin waxa uu kaga baxsanaya dhibaato uu kaga baxsanaya naftiisa ku badbaadin ayna jirin taas weeyaan dhaarta beenaaluhu. wa canhu radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala اله alay slm qaala min alkabaa'ir kabaa'irta waxaa ka mida shatmu rajuli waalidayhi ninka caydiisa labadiisi waalid uu caayo. qaaluu markaasuu odhan yaa rasuula allah wahal yashtimu arajulu waalidayhi ma nin baa waalidaynkiisa caayaya riwaaya soo socotaana lacnad bay sheegaysaa inuu naclado. marka way la yaabeen saxaabadii ridwaanullahi calayhim oo waxay u qaateen in toos iyo mubaasharatan inuu u caayo laga wado taasna way la yaabeen. haddayse zamankeena joogaan wax badan bay taasoo kale maqli lahaynoo mayna la yaabeen. zamankoodii baa marka dadku ay waalidka taxgelin jireenoo taas waa la yaabeen iyada. qaala markaasuu uhi nacam haayo waa caayayaayo wuxuu ku caayayaa yasubu aba rajuli nin buu aabbihii caayayaa fayasubu abaahu markaasuu isna hooyadii aabbihii caayayaa wayasubu ummahu hooyadii buu caayayaa fayasubu ummahu markaasuu isna hooyadii caayayaa muttafaqun calayh. marka nin buu ku dhahay aabbaha waxa ku samey markaasuu isna ugu jawaabaya habartaa kanay tahay adiga habartaa kan tahay. marka ugu sababowgaa qof kale inuu caayo waalidkii uu u soo jiiday kolkuu waalidkii ka caayisna ugu jawaabay inuu waalidka caayo taas marka isaga caayo waalidka isaga caayo marka. wa fii riwaayatin ina min akbari alkabaa'iri an yalcana arajulu waalidayhi kabaa'irta inta ugu waaweyn waxaa ka mid a ninku inuu naclado waalidaynkiisii. qiila yaa rasuula allahi kayfa yalcanu arajulu waalidayh qaala yasubu aba arajuli fayasubu abaahu wayasubu ummahu fayasubu ummah. وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع جنة مقل قوي. قال سفيان في روايته يعني قاطع رحمه الله قرابة قوي جنة مقل وأهل النار متفق عليه. وأنا ملعون وكان صوم الرأي إنه آية أن كيري لبدي آيات بقى أولئك الذين لعنهم الله أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى حرم عليكم ألا سرية وحو إذن كحرمي عقوق الأمهات
hooyooyinka ku caasi garowgoodii wa mancan wahaad keen iyo ceshasho inuu wax dadkana keen uu yidhaaho waxaanu xaq u lahayn waxay xuquuqdii lagu lahaan isagu uu ceshado wa wa'da albanaat iyo gabdhaha xabaal nololintooda nolosha lagu dilo wa kariha lakum wuxuuna idiin necbaystay qiila waqaala waa la yidhi iyo wuu yidhi iyo waxa ku tiri kutaanta aan nidhaahno weeyaan hadal tororog oho macno aan lahayn oo kanaa la yidhi kana la sheegan waxaasa wa kasrata su'aal iyo su-aal badnida su-aal badnidu labay noqotaayo su-aal xagga cilmiga waa noqotaa su-aal xagga baryadaana waa noqotaa marka su-aalka cilmigaa kolka uu xun yahay waxaa weeyaan waxyaalo tafaasiil ahoo aan loo baahnayn waxyaalo dhacaye iyo ba aan ahayn oo qaraa'ib ah inuu isku hawliyo oo cilmigii u baahnaayo camalka ku saabsanaa uu ka tago oo waxyaalo kale isku hawliyo midda su-aalka baryadaana midda ilxaafka ah weeyaanu qofkii oo shaqo ka dhigta baryada oo qofkii cudurdaara kolkta aan ka tegaynin ku celcelinayo taasna iyaduna waa xun tahay wa idaacata almaal iyo maalka baylihintiisa maalkiisa qofka inuu dayaco inuunu baylahda ka celinin xoolo nool hadday yihiin shilinta aanu ka gurin oo biyihii iyo baadkii iyo caafimaadkooda iyo waxyaalahaas iyo aanu ka fakirin oo xerada u wanaajinin oo day guryo iyo beeri ay yihiin aanu dayac tirin waa noqotaa inuu ku bixiyo meelo aan faa'iide aan lahayn ama waxyaalo muxaramaad ah uu ugu isticmaalo ama waxyaalo taraf iyo muxuu ahaay ka badbadina oon u baahnayn oo uu isticmaalo sidii ninkii lagu tiriyey isagoo la arkay gurigiisa xarxardhaayo oo wax ku qorqorayay iyo inuu maalka dayacay uu xadiidku warinaya alimaamu albukhaari fi aladab almufrad muxuu aha uu ugu soo deliishaday xadiidkanna waxaa muttafaqun caleyh wuxuuna ku imaan doonaa 1782 qowluhu mancan macnaahu mancu maa wajaba calayhi wixii ku waajibay uu ceshado wahaatina طalabu maa laysa lahu waxaanu xaqu lahayn oo dalbado wa wa'du lbanaati macnaahu dafnuhunna fi lxaya iyagoo nool oo la aaso sidai carabtu yeeli jireen wa qiila waqaalana macnaahu alxadiidu bikulli maa yasmacu wuxuu maqlay oo dhan inuu sheego isaga oo aan u kala fiirsanin fayaquula uu yidhaha qiila kada waqaala fulanu kada mima laa yaclamu sixatahu walaa yadunnaha waxaanu inuu sugan yahay aanu ogeyn aanu muxuu ahay qalabtu danina aanu uhaysanin xataa haddii uu garanayo inay faa'iida leedahay in kale aanu haddii la yidhi kole ku tahay inay faa'iida leedahay in kale isagoon kala fiirsan waxyaalaha sheekooyinka bilaashka iyo waqti lumiska iyo waxyaalahaas alla necab yahay wakafaa bilmar'i kadiban an yuxadida bikulli maa samic qofna waxaa been ugu filan in wax alla wuxuu maqla oo dhan u sheego maaha inuu uu isagoo iska samaystay iska samaystay inuu sheego keliya maaha wax alla wuxuu maqlaba waxaa la yidhi ma maqasheen kana wax sidaas uu yidhaah wa idaacatu lmaali tabdiiruhu wa sarfuhu fii gayri اlwujuhi اlma'duuni fiiha min maqaasidi alaakhirati waaddunya waxa weeye inuu ku bixiyo meelaha alla uu idnay ee waxyaalaha faa'iidada leh ama aakhiradiisa faa'iido u leh oo sadaqa iyo silaturaxim iyo waxyaalahaas ah ama adduunkiisa faa'iida u leho wuxuu isagoo ku intifaacaya ah cunto iyo cabitaan iyo xeelasho iyo waxyaalaha ugu intifaacayo wa tarku xifdihi maca imkaani xifdi isaga oo baylaha tiri kale oo baylahada aanu ka baylah tirin wa kahratu su'aal alilxaafu fi ma laa xaajata ilayh alilxaaxu waa isku adkaynayo ku celcelin waxyaala aan loo baahnayn su-aalkoodii oo waxyaala camali oo dhacaya aan ahayn wa fi lbaabi axaadiiثu sabaqat fi lbaabi qablah maalin baan waxaan arkay laba nin oo ku murmaaya ninka isla leh laba gabdhood oo addoommo ah labadaa gabdhood muxuu ahay milkulyamiin ma ugu wada galmoon karaa ama naag walaasheed uu qabo muxuu iyaduna addoon u ah milkulyamiin ma ugu bannaan tahay markaas waxaad ku murmaysaa away addoommada horta bal waxa dhicaya ma yahay inuu waaqaco mujtamaci haysto oo addoommo la leeyahay oo marka kolkaas dadka ama inay xaram yahay in iyo kale waxaan waaqaca inu jirinoo taasoo kale iyo kaas weeye su-aalaha macnaha aan lahayna sidaas oo kale ah
dadkaasoo laga yaabo waxyaalihii waajibaadkooda ahaayo salaadooda iyo soomkooda iyo cibaadada ku saabsan inay aada jaahil uga yihiin. kuwana maalin bay waxay weydiiyeen farda hilibkooda muxuu yahay, farda la qasho hadda xaggee lagu arkaaba oo kawaan hilib farda laga soo iibsanayo iyo farda waxa saas oo kale ah. marka hadda muxuu ahaan waaqicba aan ahayn oo laisku shuqliyo, kaas weeyaan waxyaalaha aan macnaha lahayn. ayb وفي الbاb أxاadiiثu sabqت في الbاbi qablahu kaxadiiثi وأqطcu man qaطcaki xadiidkaas iyaba ku mida, iyo وxadiiثu man qaطcanii qaطcahu الlah oo labadaba iyagana aan soo maray. qaraabada ay dhahayso iyado carshiga haysata allow qofkii xiriiriyo qofkii gooyana goo. ka kalena uu ahaa alle subxaanaه وataعala markuu makhluuqaadka abuuray inay qaraabadii magan gashay oo isna ugu ballan qaaday inuu qofkii gooyana goynayo, qofkii xiriiriyana uu xiriirinayo. baabu fadli biri asdiqaaءi اlab wاlأm wاlأqaarib wالزawja wasaa'ir man yundabu ikraamuhu. fadliga uu leeyahay aabbaha saaxiibayaalkiisa iyo hooyada saaxiibayaalkeedii. aabbaha ragga isku ayniga ahaayeene isjeclaayeen isla soo dhaqmeenoo wada sheekaysan jireen oo wada kaftami jireen inay aabbaha daraaddi aad u xidhiidhiso. hooyadana sidoo kale islaamihay dariska ahaayeen oo wada sheekaysan jireene muxuu ahaaye ay isjeclaayeen isjaaran jireene kuwaasa inaad daraaddeed u xidhiidhiso. islaantaada sida oo kale dadka la rabo in la xidhiidhiyo la is-amray oo dhan qaraabadoodii, sheekhaaga iyo seediga iyo sodoga iyo dadka xuquuq kugu lahoo dhanba in qaraabadoodii iyagana la xidhiidhiyo iyo saaxiibayaalkoodii. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. baarinimada inta u baarisan waxaa ka mid ah inuu qofku xidhiiriyo widayaashii aabbihii asxaabtiisa inuu xidhiiriyo yaa baarinimada u baarisan ka mid. leanno aabbaha saaxiibkiisa markaad xidhiidhinayso min baabin awlaa aabbaha nin kalaad daraaddi aabbaha u xidhiidhinaysaa. xadiidkan kada marka waxaa wariyey أحmed والbukhaariyu fi اladab الmfrad wa muslim wa abu dawuud wالtirmidiy ayaa wariyey, laakiin isaga oo riwaayadan soo socotaba faahfaahin doonta. وعn cabdالlahi bni dinaari can cabdالlahi bni cmr radي allahu canهuma ana rajula min alأcraab laqiyahu biطariiqi maka. cabdullaahi bni cumar oo jidka makaad socda ama sii socda ama ka soo socda oo asxaabtiisii cabdullahi bni dinaarkana uu ka mid yahay ay la socdaan yaa nin reebaadiyihii la kulmay oo aan cabdullaahi bni cumar garanayn. cabdullahi se uu gartay fasallama calayhi cabdullahi bni cumar. cabdullahi bni cumar baa salaamay. qof kastaba ilaa kusoo waa kii salaami jiray, waana xadiidkiisa waa inoo iman doonaa inuu aad dadka soo salaamtid u bixi jiray suuqa ugu soo warwareegi jiray qofka aad la kulantaba aada soo salaamtid. marka ninkii reebaadiyahaa buu salaamay. wa xamalahu calaa ximaarin kaana yarkabuhu. wuxuu saaray oo uga degay dameer uu kori jiray ibnu cumar radi allahu canhuma. wa acطaahu wuxuuna siiyey cimaamatan kaanat calaa ra'sihi. cimaamad madaxa u saaraydna oo u bixiyo waa siiyey. qaala ibnu dinaar, cabdullahi bnu dinaar baa wuxuu yihi faqulnaa lahu waxaan ku nidhi aslaxaka allah inahum alacraab. nimankan waa reebaadiya wahum yardawna bilyasiir. wax yar beer raalli noqonaa dirham haddaad siisa uu kaaga raalli noqon lahaa, maxaad waxaan oo dhan isaga siisay? muxuu aha imaamadii aad qoraxdii isaga dhigaysay iyo dameerkii. faqaala cabdullahi bnu cumara radi allahu canhu. cabdullahi bni cumar baa wuxuu yidhi ina abaa haada feeriyaada marka ninka naftiisa maaha, waa ninka aabbihii. ninkan aabbihii baa cumar saaxiib la ah. markaasuu xidhiidhintuu cumar xidhiidhin lahaa yuu ninkii saaxiibka ahaa wiilkiisii sii xidhiidhinaya. markaasuu wuxuu yidhi ina abaa haada ninkan aabbihii kaana wuddan licumar bn الخطاab radi allahu canhu. waday buu u ahaa cumar bn الخطاab radi allahu canhu. وإنii samictu rasuul اlah sl عlيه waslم yaquul ina abara اlbiri an yasila الrajulu ahla wuddi abiih. waxaa ka mida baarinimada inta ugu baarisan inuu ninku xidhiiriyo aabbihii muxuu ahaa asdiqadiisii qaraabadooda inuu xidhiiriyo. wa fii riwaaya kaloo saddexaadna waxayd can ibni dinaar can ibni cumar radi allahu canhuma anahu kaana إidaa kharaja ilىa maka. ibni cumar wuxuu ahaan jiray markuu maka u baxo
oo xaj ama cumro u aado kaana lahu ximaarun yatarawaxu calayhi wuxuu lahaa dameer oo uu ku nasan jiray idaa malla rukuuba araaxila hasha geela fuulitaankiisa markuu ku dalla geel waa ruxayaa marka dameero waxaa weye si fiican loo carbiyo shag 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 yidhaaho oo muxuu ahay aan ruxaynin dadka oo si fiican si gaar loo carbiyo weeyaan marka dameerkaa ka raaxa badan kolkuu awrka ku daalo dameer uu ku nasan jiray yuu kaxaysan jiray wa cimaamatan yashuddu bihaa ra'sahu iyo cimaamadu madaxa ku xidho qoraxda isaga dhigo fabaynamaa huwa yowman calaa dalika alximaar mar uu dameerkaa saaraa id mara bihi acraabiyu nin reer baadiyaha soo maray faqaala markaasuu cabdullaahi yidhi alasta bna fulaan ibni fulaan warsaw inay hebel hebel ma ihid qaala balaa haa waanahay faacطaahu alximaar dameerkii buu siiyey wa qaala wuxuuna yidhi irkab haada waa lugeynaya ninku ilaan kan kor wa acطaahu alcimaama cimaamadiina waa siiyey oo wa qaala wuxuu yidhi ushdud bihaa ra'saka madaxa ku xajiso faqaala lahu bacdu asxaabihi talaamiiddiisa qaarkood baa ku yidhaaheen gafara allahu lak allah kuu dambi dhaafee acطayta hada alacraabiya reer baadiyahan waxaad siisay ximaaran kunta tarawaxu calayhi dameerkii aad ku nasan jirtay wa cimaamatan kunta tashuddu bihaa ra'saka cimaamaddii aad madaxa ku xidhan jirtay faqaala markaasu wuxuu yidhi inii samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyh wali wasalam yaquul ina min abari اlbiri an yasila arajulu ahla wuddi abiihi bacda an yuwalliya yani bacda an yadhaba wa yamuut aabbahay oo dhintay isagoo noolba iskaba dhaafe aabbahay oo dhintay saxaabtiisii qaraabadooda inaad sii xidhiidhso marka asxaabtaana waxaa ka mid a seediyaalkiisii iyo sodohyaalkiisii iyo haweenkiisii iyo waxaasna wa ina abaahu kaana sadiiqan licumara radia allahu canhu aabihii baa saaxiib u ahaa cumar radi allahu canhu wa rawaa hadihi riwaayaati kulaha muslim wa can abi usayd bdm الhmزة وفتح الsin malik بn ربيcة الsاacdي رadي الله عanه qaala bayna naxnu juluusun cinda rasuuli الlahi sl ه عlay slm mar aan nabiga sal ه alay slm agtiisa fadhina id jaaءahu rajulu nin baa u yimid bani salima qabiilada banu salima ah salama buu ii shaqlay lakin salama me waa salima faqaala markaasuu ya rasuula الlah hal baqiya min biri abawaya aabbahii hooyaday u baari noqodkoodii ma ka hadhay shay-un wax abaruhum aabihi aan ugu baari noqdo bacda mowtihima intay dhinteen dabadeed faqaala markaasuu yihi nacam haa alsalaatu calayhima waistigfaaru lahuma wainfaadu cahdihimaa ballantoodii iyo amarkoodii iyo dardarankoodii oo la fuliyo min bacdihima wasilatu raxim alatii laa tuusalu ilaa bihima qaraabadii aadan xaggood un laga xidhiirinayo qaraabo kale ilan malihide oo la xidhiiriyo wa ikraamu sadiiqihima sadiiqoodii oo la maamuuso rawaahu abu daawuud xadiidkan abu daawuud waa wariyey iyo ibnu maajah wa muxuu ahay wاlbukhaariyu fi ladab اlmufrad waana daciif xadiidkan ka biso can caaishaةa radi allahu canha qaalat ma girtu calى imra'ati min nisaءi الnabiyi salى اllahu عalayhi waalih wasalam ma girtu calى khadiijata radia allahu canha ma aanan ka masayrin qof oo haweenkii nebiga ka mida salى اllahu عalayhi waalih wasalam inta aan ka masayray khadiija sidaan khadiijo uga masayray naagaan uga masayray ma ay jirto wamaa ra'aytuhaa qatu mana aanan arago maanan isa soo gaadhin sidee marka uga masayrtay walaakin kaana yughiru dikrahaa sheegsheegideedii ammaanteedii hadalhaynteedu badin jiray marka taasuna xusnulcahdi baa la yidhaha arrintaasoo kale oo qofkaad si fiican isku barateena si fiican kusoo wada dhaqmi jirteen ama saaxiibka ha ahaada ama xaaskaagii ama wax kasta ha ahaadee waa inaan la ilaawin kolkuu dhintay ama la kala tegay iyo warubbamaa dabaxa shaah waxaa suuroobi jirtay inuu neef adhiya gowraco guriga lagu gowraco huma yuqaطicahaa acdaa'a uu xubno xubno u googooyo huma yabcahuhaa uu u dirdiro xubnaheedii fii sadaa'iqi khadiija sadaa'iq waa jamcu sadiiqa saaxibadihii khadiija uu dirdiro oo xubin tan heblayaha loogeey tan heblayaha loogeeya la yidhaaho farubbamaa qultu lahu waxaa dhici jirtay inaan ku dhaho kaan lam yakun fi dunyaa ilaa khadiija waxaad moodaa inayna naag kaleba jirin khadiija mooyaane khadiija idan baad ku haysaa fayaquul markaasuu dhixi jiray inahaa kaanat wa kaanat kada wa kada wa kaanat kada kada yani kasoo gaabsatay
kanay ahaan jirtay oo kanay ahaan jirtay oo waa ammaani jiray. wa kaana lii minhaa walad, ilmana waa ay dhashay, waa haweenka kale sina caruur mayna u dhelin, marka sidaasuu ugu ammaani jiray nebiga sal ly slam oo u hadalhayn jiray. muttafaqun calayh. wa fii riwaayatin wain kaana wainahu yani in xaalku wuxuu yahay kaana inuu ahaa la yadbaxu shaaha ashaata wanayduu gowrici jiray ma aha khadiija u gowrici jiray. dad baa waxay dooneen inay xadiidkan kada usoo deliishadaan nebigu sala alla alay slam markay khadiija dhimatay buu u qalay neef axankeedii neef u qalay ma aha xoolihii la gowrici jiray ee caadiga hilibka loo qalan jiray siduu khadiijo asdiqadeeda ugu hadiyayn jiray un bay xadiidku u sheegayaa inuu neef adhiga gowraca suuroob jiray fa yuhdii fii khalaa'ilihaa, khalaa'ilna waa jamcu khaliila, minhaa yani min tilka shaah maa yasacuhunna wax kaafiya uga diro. wa fii riwaayatin kaana idaa dabaxa shaata wuxuu ahaan jiray markuu wanayda gowraco yaquulu dhihi jiray arsiluu bihaa ilaa asdiqaa'i khadiija, u dira khadiija saaxibadaheedii u dira, hilibka wax ka siiya. wa fii riwaayatin qaalat ista'danat haala bintu khuwaylidin radia allahu canha uktu khadiija radia allahu canha calaa rasuuli lah sal ly slam. haala bintu khuwaylid oo khadiijo walaasheeda radia allahu canhuma yaa rasuulka sala allahu alيyh wali slam ka idan dalabtay oo inay soo gashay rabtay. facarafa isti'daana khadiija, khadiija idan dalabkeedii buu codkeedii buu xusuustay khadiija. faاrtaaxa lidalika, arrintaasuu ku farxay. faqaala markaasuu allahuma haala bintu khuwayl, alla waa haala bintu khuwayl. qowluhaa faاrtaaxa huwa bilxaa, wa fi ljamci bayna صaxiixayni lilxumaydi waxaa isaga ku jirtay fartaaca bilcayn, wa macnaahu ihtama bihi, arrintaasuu ku murgay oo soo toosay oo soo kacay. marka wax alla wuxuu kusoo xusuusta khadiijaba ayuu ku farxi jiray, soo dhowan jiray. wa can anas bni malik radia allahu canhu qaal kharajtu maca jariir bni cabdillahi albajaliy radia allahu canhu fii safar. jariir bni cabdillahi albajali radia allahu canhu baan socdaal u raacay. fakaana yakdumunii waa ii adeegi jiray. jariir baana ka weynaa anas, marka isagoo ka weyn buu haddana u adeegi jiray. faqultu lahu markaasaan ku dhahay laa tafcal, ha yeelin sidaa, ha adeegan anaaba kaa yare. faqaala markaasuu wuxu uhi innii qad ra'aytu alansaara, ansaar baan arkay tasnacu birasuuli llaahi sala allahu alayhi waalihi wasalama shay-an, rasuulka alla sala allahu alay wasalam iyadoo wax u samaynayso oo aalaytu calaa nafsi, yani say ugu adeegeen ugu khidmaynayeen ee ugu jajabnaayeen baan arkay. aalaytu aan ku dhaartay calaa nafsi anlaa asxaba axadda minhum inaanan la rafiiqin mid ansaar ka mida ilaa khadamtu ilaa waa inaan u adeegaa, saasaan ku dhaartay oo aan goostay. muttafaqun caleyh. marka saxaabtii rasuulka sal lla alay slam ee ansaarta ahayd ee aada ugu khidmayn jirtay, ugu adeegi jirtay, aada ugu jajabnayd, ubadkoodiibu say xidhiirinaya marka ninkakadu rasuulka xidhiirintiisa yani daraaddeed. baabu ikraami ahli beyti rasuuli llahi sala allau alay slam wa bayaani fadlihim, qaraabadii nebiga sala allahu alayhi waali wasalam, qaraabadii nebiga xidhiirintooda, maamuusidooda iyo fadligooda ay leeyihiin caddayntooda wey. qaala allahu tacaala inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum rijsa ahli اlbeyti wayطahirakum taطhiira. alla wuxuu rabaa inuu alle subxaanahu wa tacaala idinka zuuliyo rijsiga yani xumaha iyo dembiga iyo ismiga inuu idinka zuuliyo rabaa. ahla albeyti qoyskanow, qoyska nebigu sheegaya sal slam, wayuطahirakum taطhiira, uu idin طaahiriyo طaahiriin kaamila idin طaahiriyo rabaa. wa qaala tacaala waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa اlqulub, qofka weyneeya astaamaha alla weyneeya, diinta alle waxa ku weyn weyneeya, fainahaa min taqwa اlquluub, taas waxay ka mid tahay quluubta alla kacabsigooda. wa can yaziid bni xayaana qaal inطalaqtu ana wa xusayn bnu sabra, waxaan israacnay anigii ninka xusayn ibnu sabra la yidhaaho iyo wa camru bnu muslim ilaa zayd bni arqam radia allahu canhu, ninkaas la yidhaaho zayd ibni arqam yaan isu raacnay.
falamaa jalasnaa ilayhi markaan la fadhiisannay qaala lahu xusayn ibnu sabra ku yidhi laqad laqiita yaa zaydu khayran kasiira zaydoo khayr badan baad la kulantay ra'ayta rasuula اllahi salى اllahu alayh waali wasalam rasuulka allaad aragtay wasamicta xadiidahu xadiidkiisaaad maqashay wagazawta macahu waad la duushay wasallayta khalfahu gadaashiisaad ku tukatay laqad laqiita yaa zaydu khayran kasiira zaydoo khayr badan baad aragtay xadidnaa yaa zaydu maa samicta min rasuuli اllahi salى اllahu alayhi waalihi wasalam nooga warran oo zayd oo xadiid aad ka maqashay rasuulka alla sala allau alay slam noo wariyo noo sheeg qaala markaasuu yidhi yabna akhii war adeer wallaahi laqad kabirat sinni daadaydii waa weynaatay waqaduma cahdii waqtigaygiina waa daahay waa fogaaday waqtigii ugu dambaysay yani wanasiitu waana ilaaway bacda aladii kuntu aci min rasuuli اllahi salى اllahu alayh waali wasalam wixii aan ka xifidsanaa rasuulka alla sala alla alay slam qaarkiina waa ilaaway famaa xadadtukum wixii aan idiin sheego faqbaluu qaata wamaa laa wixii aan ahayna falaa tukallifuuniihi haygu dhibina oo haydhihin wax noo sheegay haydhihina waxaan xusuusnahay anaa idiin sheegaya waxaan xusuusnayn marka haddaad i weydiisaan dhib bay igu noqonaysaa ilaa waqti hore ay ugu dambaysay waxbaan ilaawo waa da-weynaadayo uma qaala markaasuu wuxuu yidhi qaama rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka alla ayaa istaagay fiinaa dhexda iyadu istaagay yowman maalin khatiiban isagoo khudbaynaya bimaa-in yudcaa khumman biyo oo khum la yidhaaho qadiir khum la yidhaaho balli khum la yidhaaho oo bayna makata walmadiina ah faxamida allaha waa kolkii laga soo noqday xajat lwadaaci alluu ku xamdiyo wa ahnaa calayhi wuu ammaanay wawacada waa wacdiyey dadkoo wadakara waa waaniyey uma qaala markaasu wuxuu yidhi amaa bacdu intaa dabadeed alaa ayuha annaas war hoydadiihow fa innamaa ana basharun anuu bani aadam baanahay yuushiku waxaa dhaqsanaysa an yaatiyanii rasuulu rabbi rabbigay rasuulu isoo diray malagu isoo diray oo iigu yeedhaya muxuu ahayey alla agtiisa iyo janno iigu yeedhaya oo adduunyada inaan ka tago iigu yeedhaya ilan waa la khiyaar gelin jira ambiyada alla alayhim salaatu wasalaam inuu u yimaado fa ujiib aan raaco yani inaan geeriyoodo wa ana taarikum fiikum haqalayn aniguna waxaan idinkaga tegalayaa laba arrimoodoo waaweyn baan idinkaga tegayaa culculus awaluhumaa kitaab allah midkood waa kitaabka alleh fiihi alhudaa waannuur hanuun iyo nuur baa ku jira fakhuduu bikitaabi illaahi kitaabka alla qaato oo qabsada oo wastamsikuu bihi xajista faxaha calaa kitaabi illahi kitaabka alluu dadka ku guubaabiyey waragaba fiihi waa jeclaysiiyey uma qaala markaasu wuxuu yidhi wa ahlu beytii iyo qaraabadayda ahlu beytkayga yani qaraabadayda cashiiradayda udakirukum allaha fii ahli beytii udakirukum allaha fii ahli beytii allaan idinku waaninayaa oon idinku wacdinaya ahlu beytkayga yani inaad ahlu beytkayga aada ii dhaqaalaysaan ood xurmaysaan oo daraaddi aad u ogaataan xaqooda u garataan ayaan idinku dhaarinaya idinku adkaynaya uma faqaala lahu xusayn ibnu sabrihi baa ku yidhi waman ahlu beytihi yaa zayd ahlu beytkiisu yay yihiin alaysa nisaa'uhu min ahli beytihi haweenkiisu ahlu beytkiisa miyayna ka mid ahayn qaala markaasuu yidhi nisaa'uhu min ahli beytihi haweenkiisu ahlu beytkiisa way ka mid yihiin dhanna way uga mid yihiin dhanna uga mid ma aha ahlu beytkiisa ay ka mancoon tahay zakadu ka mancoon tahay iyagu kuma jiraan laakiin ahlu beytka la ammaanay ee aayaddu ay ku soo degtay inamaa yuriidu llahu liyudhiba cankum rijsa la yidhi waa ku jirta walaakin ahlu beytihi man xurima sadaqata bacdahu ahlu beytkiisu waxaa weeyaan dadka laga qadiyey zakada loo diiday isaga dabadii qaala markaasuu xuseyn yidhi waman hum waa kuwe qaala markaasuu wuxuu yidhi hum aalu caqiil waa aalu cali waa reer cali wa aalu caqiil wa aalu jacfar wa aalu cabaas yani wa bani cabdilmuطalib qaala markaasuu xuseyn yidhi kullu haaulaa'i xurima sadaqa kuwaasoo dhan sadaqada ma laga xaramiye ma loo diiday qaala nacam rawahu muslim waana imaan doonaayo wuxuu ku iman doonaa raqam
712 buu ku iman doonaa. wa fii riwaayatin riwaaya kalena waxay ahayd alaa wa inii taarikum fiikum haqalayn, anigu waxaan idinkaga tegayaa laba culculus baan idinkaga tegayaa. axaduhumaa kitaabu ullah, midkood waa kitaabka alla, huwa xablullahi waa xadhiggii alla, man itabacahu kaana cala alhudaa, qofkii isaga raacayo hanuun buu ku sugnaanayaa, waman tarakahu kaana calaa dalaalah, qofkii ka tagaana lumitaan buu ku sugnaanaya. marka kaas halkay riwaayadii hore ka tiri kitaabka alluu dadka ku guubaabiye oo jeclaysiiyey iyo inahaas tanu kasii sheegtay intay tanu soo duuduubtay. xadiidku marka riwaayaad dhowr ah oo kala gegedisan buu leeyahay. sidan uu zayd u wariyeyna rag kaloo saxaaba oo kale iyaguna u wariyey baa jira. marka waxa weeya riwaayadaha qaarkood ayaa waxay yidhaahaan waxay dhahayaan inii taarikum fiikum, anuu dhexdiinna waxaan idinkaga tegayaa khaliifatayn, laba arrimood oo muxuu ahaaye meeshayda idiin gelayo oo aan idinkaga tegayo baan idinkaga tegayaa. kitaab ullah, midkood waa kitaabka allah, xablun mamduudun maa bayna aلsamaa'i wاlard, waa xadhig cirka laga soo lalmiyey oo dhulka loo soo lalmiyey. wa citratii ahlu beyti, iyo citradayda qaraabadayda ahlu beytkayga ah, wainahumaa lan yaftariqaa xataa yaridaa calaya alxawd, mana kala hadhayaan ilaa xawdka iigu yimaadaan. xadiidkan kadana waxaa wariyay riwaayada axmed iyo طabaraani yaa ka wariyay can zayd ibni haabit, waana صaxiix. riwaaya kalena waxay dhahaysaa inii taarikum fiikum maa in tamasaktum lan tadiluu bacdii abadaa, waxaan idinkaga tegay wuxuu haddii aad qabsataan aniga dabadii aadan lumaynin. axaduhumaa acdamu min alaakhar, midkoodka kale waa ka weyn yahay. kitaab ullah waana kitaabka alle, xablun mamduudun min aلsamaaءi ilى alard, wacitrati ahli beyti, walan yaftariqa xataa yarida calaya alxawd, faاnduruu kayfa takhlufuunii fiihimaa, ka fiirsada sida aad igaga dambaynaysaan ee aniga dabaday aad labadaas shay u ilaalinaysaan, bal ka fiirsada. isna waxaa wariyey tirmidi baa wariyey can zayd bni arqam radia allahu canhu, isna waa saxiix. riwaaya kaloo saddexaad baa iyaduna waxay dhahaysaa ana xarbun liman xaarabtum wa silmun liman saalamtum, yani wuxuu sheegayaa cali iyo faatime iyo xasan iyo buu sheegaya. xadiidkaasuna waa isagu waa xasan oo waxaa wariyay tirmidi wabnu maajah wabnu xibbaan waalxaakim can zayd bni arqama radia allahu canhu. وعn بن cمر رضي الله عنهma عن أbي بكر الصديq رضي الله عنه موquuفا عlيه, yani min kalaami أbi bكr رضي الله عنه isagoo ah wuxuu yidhi أنه qاal اrqbوا محمدا صلى الله عليه وآله بن أرقم رضي الله عنه. وعn بن cمر رضي الله عنهma عن أbي بكر الصديq رضي الله عنه موquuفا عlيه, yani min kalaami أbi bكr رضي الله عنه isagoo ah wuxuu yidhi أنه qاal اrqbuu محamda slى الlه عlيه وaلiه وsلم fي أhli beytihi, muxamed salى الlaه عalيه waslm ilaaliya oo ahlu beytkiisa ku ilaaliya, yani ahlu beytkiisa inaad u ixtiraamtaan oo u wanaajisaan ku ilaaliya oo ku dhaqaaleeya. rawahu الbخaariي. maana urqbuu raacuuhu واxtarimuuhu وأkrimuuhu, nabiga sal اه عlay slm ilaaliya oo xurmeeya oo xushmeeya, inaad qaraabadiisii u xurmaysaan ku xurmeeya. والله أعلم. baabu twqيr العلماء والكباar وأهل الفضل وتqديمهم عlى غayrihim وrفci majاalisihim وإظhاari martabatihim, culimada weynayntooda iyo dadka waaweyn ee ama da-da ku weyn ama diinta ku weyn ama mxuaha si un ku weyn, mansib iyo darajo iyo ku weyn, darajayntooda iyo weynayntooda. wa ahli lfadli iyo dadka fadliga leh xagga diinta fadliga ku leh, xufaad alqur'aanka iyo dadka ahlu cibaadada iyo mujaahidiinta iyo wa taqdiimihim calaa gayrihim iyo keyrkooda oo laga horraysiiyo wixii la qabanayo wixii la bixinayo iyo haddii la hadlayo sidaasa. wa rafci majaalisihim, meeshay fadhiisanayo kor loo qaado oo meel wanaagsan la fadhiisiiyo. wa idhaari martabatihim, darajadooda la muujiyo, sharaftooda loo muujiyo.
qaala allahu tacaala qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulul albaab waxaad dhahdaa ma siman yihiin kuwa wax yaqaani iyo kuwa aan wax aqoonin ma sina weeyaan inamaa yatadakaru waxaa un waana qaataa ulul albaab dadka caqliga leh asxaab alcuquul yani وعn أbي مسعوud cقبة بن cمر الbdري الأنصاaري رضي الله عنه qال qاla رsuل الله صلى الله عليه وسلم yأm الناaس أqرأهم لkتاaب اللah dadka waxaa tujiya ka ugu aqoon badan kitaabka all ugu aqrin badan yani intuu ka yaqaanaayo ay badan tahay qaar qur-aanka o dhan wada xifdisan iyo qaar nus xifdisan hadday yihiin ka qur-aanka o dhan wada xifdisan ayaa mudan inuu isagu imaamka noqdo imaamnimadaasuna marka waa darajo iyo sharifaad weeyaan fain kaanuu fi lqira'ati sawaa hadday xagga qiraa'ada iskaga eg yihiin faaclamuhum bisunna ka sunnada ugu aqoon badan baa markaa tujinaya fain kaanuu fi sunnati sawaa sunnada aqoonteedana hadday iskaga mid yihiin faaqdamuhum hijra kooda ugu horreeyey hijrada ugu soo hor hijrooday hijradana marka waxaa lamida طalab alcilmiga ayaa meeshiisii jooga siduu alimaam albukhaari radi allahu canhu uu ku tusaaleeyey marka hadday jiraan laba nin oo midna muddo 5 sana meelaha طaalibulcilmi ah midna 6 sana iyo 7 iyo kii horta طalabulcilmiga ku horreeyey kaasaa la horreysiinayaa fain kaanuu fi lhijrati sawaa hadday xagga hijradana iskaga mid yihiin faaqdamuhum sinan koodii horreeyey xagga da'da weyn walaa ya'umana arajulu الrajul ninku yaanu imaam u noqonin oo aanu tujinin fii sulطaanihi meeshii madaxda uu ku ahaa meeshuu isagu xukumayey isaga oo la joogo yaanu iska dhiganin isagu masallaha iska dhiganin oo aanu dadka imaam u noqonin ee kaa madaxdiya dadka tujiyo walaa yaqcud yaanu ku fadhiisanin fii beytihi gurigiisana calaa takrimatihi takrimadiisa yaanu ku fadhiisanin takrimo waxaa weeyaan meel loo hagaajiyo ninka guriga loo hagaajiyo ama sariir ama kursi ama dekad meel sidaas oo loo goglay qofkii martida ahaa ee yimidu si usii socday aanu meeshii islaantu ninkeeda u hagaajisatay aanu ku fadhiisanin ilaa biidnih rawahu muslim wa fii riwaayatin lahu yani limuslim faaqdamuhum silman badala sinan xaggi da'da tii ka ahayd islaamidda bay ahayd ay islaaman wa fii riwaayatin yaumu lqowma aqra'uhum likitaab illah wa aqdamuhum qira'a dadka waxaa tujiyaa ka ugu aqoon badan kitaabka alle ee ugu horbarashaha horreeyey mid hadduu xifdiyey muddo laga joogo 10 sannadood midna 5 sannadood muddo laga joogo uu xifdiyey labadooda xifdisan yihiin kooda hor xifdiyey baa ilaan kusii maahir oo kaasaa tujinaya fain kaanat qiraa'atuhum sawaa hadday qiraa'adoodu isku mid tahay faya'umuhum aqdamuhum hijra fain kaanuu fi lhijrati sawaa falya'ummahum akbaruhum sinaa kooda ugu daaweyn wاlmuraadu bisulطaanihi maxali wilaayatihi meeshuu xukumayey taasaa laga wadaa aw ilmawdic aladii yakhtasu biamr meesha isaga u gaar ah gurigiisii iyo beertiisii iyo dukaankiisii wa takrimatuhu bifatxi taa wa kasri ra takrima wa hiya maa yanfaridu bihi min firaashin wa sariirin wanaxwihima waxa isaga gooni loogu sameeye firaash iyo gogol iyo sariir iyo kursi wax sidaas weeya وعنه رضي الله عنه يعني عن أبي مسعوud qaala kaana rasuulu الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم rasuulka alla wuxuu ahaan jiray yamsaxu manaakibana garbaha iyaguu taataaban jiray fi الصلاة manaakib waa jamcu mankib mankibna waxaa la yidhaha halkaa cududi iyo garabka isaga yimaadaana fiiqa baa la yidhaahaa halkaasuu taataaban jiray isku hagaajin jiray wayaquulu wuxuuna dhihi jiray istawuu walaa تkhtalifuu fatakhtalifa quluubukum sinaada oo muxuu ahaaye sila ekaada oo ha iskhilkhilaafinayana qalbigeenu iskhilkhilaafin qalbigeenu yoonu iskhilkhilaafin xadiid aan soo marray hadda ka hor soo marray ayaa jiro oo dhahayey nebigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu dhihi jiray cibaad allah la tusawuna sufuufa aw la yukhaalifana allahu bayna wujuuhikum wajiyaalkiinu la iskhilaafsiinaya taasna marka laba macnay aan kusoo sheegnay xadiidkan kadu marka xadiidkaasu fasirayaayo waxaa ikhtilaafu wujuuha marka waxaa laga wadaa wejiga oo la kala dadbo oo qalbiga xuma intaa la isu geliyo dadku ay wejiga kala dadbayaan liyalinii ha igu soo xigo minkum idinka
ulul axlaami wannuhaa dadka qaangaarhka iyo waxgaradnimada saaxiibkii dadka qaangaarhka waaweyn carruurta yaryar yayna igu soo xigine ragga waaweyn ee caqliga leh ha igu soo xigo ee caqliga iyo cilmiga leh ragga waaweyn maangaabkiina weliba yayna igu soo xigin weeyaan uma aladiina yaluunahum haddana kuwa ku soo xigaaya kuwaas ka daayaryar ee ka cilmi yar rawaahu muslim baa saxiixiisa ku wariyey wuxuuna ku iman doonaa 1086 qowluhu liyalini huwa bitakfiifi الnuun walaysa qablahaa yaa liyalini yalini laamka iyo laamka iyo nuunta iyo uma dhaxayso nuuntuna mashadna waruwiya bitashdiidi nuun maca alyaa'i qablahaa taana waa lagu wariyey oo liyaliyani la yidhaaho والنهى العقول النهى waa جمع نهية ومعنى عقول وأولو الأحلاam هم الباalغوun waa kuwa qaangaaray وqiila أهل الحلم oo kuwa dulqaad kale والفضل iyo fadliga leh kuwaasna waa laga wado labada macnaba waa suulabaysaa أولو الأحلاam in looga wado وعن عبد الله بن مسعوud رضي الله عنه qال qاla رsuل الله صلى الله عليه وسلم ليلنيi miنكم أولو الأحلاam والنهى ثuma الذيina يلونهم ثaلاثا سدx goor buu yidhi sidii ti xadiidkii abu mascuud oo kale buu ibnu mascuudna wariyey saddex goor buu sidaa yidhi وإyaakum وhayshaati الأswaaq kala ilaaliya idinka iyo buuqa suuqa oo markaad safka hagaajinaysaan in qofka halka ka dhaaqdo buuq isku darmado sida suuqa ninba alaabtiisa uu ku dhawaaqay buuq isku darsamo iska ilaaliya rawaahu muslim وعن أbي يحيى وقيل أbي محمد سهل بن أbي xثمة رضي الله عنه بفتح xثمة المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعوud إلى خyبر labadaa nin oo ilmo adeera oo midkoodna la yidhaaho cabdullaahi bnu sahlinka kalena la yidhaaho muxayisat ibnu mascuud ayaa khaybar aaday wa hiya yowma-idin sulxun maalintaasna heshiis bay ahayd heshiis baa lagu kala jiro nabad bay ahayd meel ma ayna ahayn muxuu ahaayey colaadi ka taagan tahay fatafaraqaa way kala baaheen way u shaqo doonteen oo markaas inay kasoo shaqaysa marka xaafadihii ayay ku kala leexdeen iyo beerihii iyo shaqo ka raadsanayeen faataa muxayisa u yimid ilaa cabdillaahi bni sahlin radia allahu canhuma wahuwa yatashaxadu fii damihi qatiila isagoo dhiigiisa dhex galgalanayo oo la dilay yuu u yimid fadafanahu waa aasay uma qadima almadiina haddana madiinuu yimid faاnطalaqa markaasay dhiiggiisii sheeganayaanoo dacwaysanayaan yahuuddii qaraabadiisii oo uu ka mid yahay in laba ilmo adeeradii iyo walaalkii faاnطلqa cabdالرaحman بن سهل ومxayisة وxuwayصة بna mascuudi radي الlahu canهum ilى النabiy slى الlه عlay slam yay u aadeen saddexdaa nin fadahaba cabdالرaحman yتklm cabdالرaحmaan baa tegay inuu hadlo lanna isagaa ninka ugu xiga wahuwa faqaala kabir weyne buu ku yidhi wahuwa أxdaث الqowm isaguna wuxuu ahaa ragga ninka ugu daayar buu ahaa marka inuu hadlo kolkuu doonaba ka qabtay nebigu sal ly slam uu yidhi ragga waaweyne ha hadlo fasakata waa amuse fatakalamaa way hadleen faqaala markaasuu wuxuu yidhi ataxlifuuna watastaxiquuna qaatilakum ma dhaaranaysaanoo nin yahuudda ka mida intaad ku dhaarataan 50 dhaarood inuu ninkii nii dilay kolkaa ma mudanaysaanoo ma la idin qisaasaya wadakara tamaama alxadiidi muttafaqun caleyh xadiidka intiisi kale ayuu sheegay xadiidka intiisa baqyaduna waxay ahayd inay yidhaaheen arrin aanan joogin weeya kuma dhaaran karo markaasuu yidhi marka yahuud baa idinka beri noqonayso oo 50 dhaarood idin dhaaranayso marka sidaa ku beri noqonaysa markaasay waxay yidhaaheen waa niman gaalo ahoo dhaartooda aamini mayno markaasuu rasuulku sala allahu alayh waali wasalam magtii isagu bixiyey oo geelii zakada ayuu ka bixiyey oo wuxuu necbaystay in dhiigiisu uu noqdo duudsoomo ayuu necbaystay markaas ninkan kada xadiidka warinaya wuxuu dhihi jiray
geelii boqolka ahay nebigu sal ly slm magtiisa ku bixiyey xeradiisii baan maalin galayoo hal guduudan oo geeli ka mid ahba ay haraatiday. qowluhu salى الlaه عalيه slm kabir kabir macnaahu yatakalam اlأkbar ha hadlo yatakalam alakbar qofka weyn ba hadlaaya. marka arrintaan oo kalena waxaa lagu magacaabaa qasaama la yidhaahaayo qof la dilay oo wax dilay aan la garanaynin laakiin ay jiraan tusaalooyin dadka qaarkood loogu aanaynayo marka ay dhacdo waxaa wey nidaamkiisu waa sidantada oo dadkii awliyaa lqatiilka ahaa ayaa dadkii meeshaas ahaa qaar ka mid ah hadday doonaan ku dhaaranaya markaasaa ama magtii looga qaadaya ama loo laynaya. hadday ka cabsadaanna kuwii kale marka la dahayaa ku dhaarta inaydaan dilin. وعn jaaبir رضي الله عنه أن النبي صلى اه عليه وسلم kاna يجمع بين الرaجuلayn min qتلى أحudi yaعni في الqبr. nebigu صلى اه عليه وسلم dagaalkii uxud markuu dhammaaday oo rag badan la laayay oo ragga intiisa kalena ay dhaadhaawac ahaayeen oo tabar yaraayeen ayaa marka ragga godka laba iyo ka badan iyo la isula gelinayay. marka kolkii godkaa la gelinayo yaa markaas qofka xagga qiblada xigaaya iyo qofka xagga soke ee xagga iilka soo maraya ayaa waxaa lagu kala bixin jiray siday u kala cilmi roon yihiin oo kala qur'aan aqris roon yihiin. ثuma yaquulu markaasu wuxuu dhihi jiray ayuhum akharu akhdan lilqur'aan koodeebaa badan xagga barashada qur'aanka kee ku badan. faidaa ushiira ilaa axadihimaa midkood haddii farta loogu dooqo waa kaa la yidhaaho qadamahu fi laxdi isagu luxudka ku horraysiinayay. rawahu الbukhaariي. وعn ibni cumara radي allahu canهuma ana الnabiya sal ly slm qaal araanii fi lmanaami waxaan isku arkay manaamka hurdadaan isku arkay atasawaku anigoo cadayanaya bisiwaakin rumay ku cadayanaya. fajaءanii rajulaani laba nin baa ii yimaadeen axaduhuma akbaru min alaakhar ka kale kala da-weyn fanaawaltu asiwaaka alasqara rumaygii baan waxaan u fidiyey koodii da-da yara. faqiila lii markaasa waxaan idhi kaabir malag baa yidhi weyne sidii uu isagu ku yidhi weeyaan marka ku yidhi cabdiraxmaan ibnu sahl fadafactuhu ila alakbari minhumaa koodii da-da weynaa baan u dhiibay. rawaahu muslimun musnadan wاlbukhaariyu tacliiqa. xadiidkan kada waxaa wariyey muslim baa wariyey musnadan yani mutasilan isagoo mutasila buu wariyey, bukhaarina isagoo mucallaq ah ayuu wariyey. tacliiqa waxaa la yidhaahaa xadiidka sanadkiisa in laga gooyo qofka hore ee mu-alifka sheekiisa in la gooyo yaa la yidhaha oo ka ku xiga laga bilaabo. arrintaasuna aad bay ugu badan tahay albukhaari radia allahu canhu. marka kolkii sidan oo kale ay tahay ee meel laga hadlaayo ama cilmi ama ra'yi wax sidaasah waxa weeyaan dadku siday u kala da'wan yihiin inay u kala bilaabaan oo hadalka u kala qaataan oo dhallinyaradu odayaasha ayna hadalka uga horraynin oo ayna ka boogin. waana arrin aad iyo aad loo khilaafsan yahay loogu baahan yahay zamanka kada in aad la isugu baraarujiyo oo dhallinyaradii odayaashii intay ixtiraamkoodii ka tageen ay quursadeen ay ka boobayaan hadalkii iyo wax walba uga horraynayaan. وعn أbي موسى رضي الله عنه qال qال رsuل اه صلى اه عليه وسلم إna min إجلال اللahi taعaalى alla weynayntiisa waxaa ka mid ah إكraama di shaybة الmسلم qofka cirada leh oo muslimka ah oo la maamuuso alla darajayntiisa ka mid tahay qofkaas la darajeeyey. wa xaamil الqur'aani iyo qofka qur'aanka sida yani xifdisan غayr الغاali fiihi kuku xadgudbay aan ahayn xadda kaga baxay waljaafi canhu ku ka tegayna aan ahayn. algaali marka waxaa laga wadaa marka ka si xun ugu camalfalayay oo qur'aanka meelo aanu ku habboonayn ku fasiraya. aljaafi canhuna waxaa laga wadaa ka aan ku camalfalayn camalfalkiisa ka tegay. marka waxaa weeyaan labadaa shardi baa laga maarmaan ah kolka uu fadiilo yeelanayo qofka xaafid qur'aankiihi inuu qur'aankii ku camalfalo oo si macquula iyo awjuhu aqbalayo oo uga camal falo.
وإكراama di الsulطaan الmuqsid iyo maamuusida qofka madaxtinimada iyo derajada lehee caadilka ah. saddexdaas ninba darajaynteedu alla tacdiimkiisay ka mid yihiin. xadiidkanna xadiidun xasanun rawaahu abu daawuud waa xadiid xasana oo abu daawud uu wariyey. waxaa xasan ka dhigay marka alimaam الnawowi sidoo kale uu ugu waafaqay sheekh الأlbani xafidahu اllah fi صaxiix الjaamiع الصغيir. وعn cmr bn شhucayb can abihi can jadihi radي allahu canهum qaal qaala rasuulu الlahi صلى اه عlيه slam laysa mina annaga naga mid ma aha man lam yarxam صaغيiran annaga muslimiinta naga mid maaho طariiqadoodii iyo jidkaygii kuma joogo weeyaan. yani man lam yarxam صaغيirana kaan u naxariisanin kaayaga yar wayacrif aan aqoonsanin oon tixgelinin sharafa kabiirina kaayaga da'da weyn kaayaga weyn ama da ama fadli kale ha ku weynaade aan sharafkiisa aan ilaalinina. rawaahu xadiiثun صaxiix waa xadiid صaxiix ahoo rawaahu abu daawuud wالtirmidi waqaala aلtirmidi xadiiثun xasanu صaxiix. saasuu yidhi alimaamu الnawowi radi allahu canhu xadiidka wuxuu ka dhigay isaga iyo mxuaha tirmidiba saxiix ba ka dhigan oo tirmidi weliba wuxuu ka dhigay xasanu صaxiix ayuu ka dhigay. laakiin sheekh اlalbani marka isaguna sidoo kale weeyaan waa ku raacayo xasan buu isna ka dhigay. wa fii riwaayati liabi daawuud xaqa kabiirina sharafa kabiirina t hortii hore riwaayadii hore halka ka tidhi wuxuu ku yidhi xaqa kabiirina. sheekh اlalbani xadiidka kada wuxuu xasan kaga dhigay صaxiix الjaamiع الصغيir iyo صaxiix الtarغib والtarhiib labadaba. وعن maymuun bn abi shabiibin raximah اllah ana caaishaةa radي allahu canha mara biha saa'il waxaa soo maray um اlmu'miniin radi allahu canha nin baryootamaya faacdathu kisra jab rooti ay siisay jabkiisa. wa mara biha rajulu calayhi hiyaab wahayba wahay-a waxaa soo maray nin oo dhar fiican iyo haybad fiican leh. faaqcadathu way fadhiisisay guriga faakala waa cunay faqiila cunta guriga husiisa waa cunay faqiila laha fi dalika arrintaasaa lagula hadlay faqaalat markaase waxay tidhi qaala rasuulu llahi salى اllahu alيyh wali wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi anzilu nnaasa manaasilahum dadka darajooyinkoodii kala dejiya oo qof walba martabadiisi dejiya. rawahu abu daawuud laakin qaala wuxuuse yidhi abu daawuud maymuun lam yudrik caaisha maymuuna bni abi shabiib caaisha ma aanu soo gaadhin yani xadiidku munqaطic weeyaano sidaa marka xadiidku daciif buu ku yahay. inuu daciif yahay buu ishaarayaa alimaamu abu daawuud radia allahu canhu waana sidaa xadiidku waa daciif oo inqiطaacaas ayuu xadiidku ku daciifay. wadakarahu muslimu fii awali صaxiixihi tacliiqa muqadimada صaxiixiisa ayuu muslimna ku sheegay isagoo mucallaq ahoo muxuu ahaa aanu mucallaqna waa kaa sheegnay waa ka sanadka qaarka hore laga gooyo weeyaan. marka muslimna kitaabkiisa ma aha sida saxiix bukhaari ma aho saxiix bukhaari isagu muqadima ma leh. imaamu muslimna radiallahu anhu muqadimo dheer ayuu kitaabkiisa u sameeyey. muqadimada axaadiidta ku jirta oo kusoo aroorinayaayo lamid ma aha fii sulbi kitaab axaadiidta uu ku sheegay oo darajadooda oo kale male marka axaadiid daciifa xataa iskaga soo arooriyaa kanu marka noocaasuu ka mid yahay weliba ma aanu isnaadinin xataa. faqaala wuxuuna ku sheegay oo wuxuu yidhi kolkuu warinayey wadukira can caaishata radi allahu canha marka waa liba tacliiq hayru jaazim weeyaan. tacliiqa hayru jaazimkeena marka siqatu tamriidka lagu wariyaana daciif weeyaanoo saasay isugu waafaqeen muslim iyo abu daawuud radi allahu canhuma xadiidkan tadciifintiisa waana sidaa ay sheegeen. qaalat wuxuu yidhi dukira can caaishata radi allahu canha qaalat inay tiri amaranaa rasuulu lah sal ly slam an nunzila annaasa manaasilahum. wadakarahu alxaakim abu cabdillahi fi kitaabihi macrifatu culuumi alxadiid kitaabkaas la yidhaaha buu ku sheegay macrifatu culuumi alxadiid la yidhaaho. waqaala wuxuuna yidhi wa xadiidu saxiix xadiid saxiixa weeyaan buu iska yidhi mana aanu isaga naftiisu ma aanu isnaadinin marka waa saxiix buu iska yidhi.
xadiidkaasi waa ضaciif oo ضaciif الjaamiع الصغير iyo silsilaة الأxaadiiث الضaciifa iyo muxuu ahay almishkaa iyo intaasoo dhan buu sheekh األbanina ku ضaciifiyey waana ضacfigiisuna waa kaa uu abu dawud sheegay oo inqiطaaca ku jira maymuun ibn abi shabiib iyo caaisha u dhexeeya weeyaan radي allahu canha. وعn iبn cabaasin radي allahu canهuma qaala qadima cuyaynaة bnu xasnin cuyayna bnu xasn baa madiina yimid fanazla calى bni akhiihi alxur bni qays ayuu kusoo degay wiilka uu adeerka u yahay xur bni qays la yidhaahaa wa kaana xurigaasuna wuxuu ahaa adeerka loo yahay min الnafr aladiina yudliihim cumaru radي allahu canhum raggii uu cumar soo dhoweyn jiray yuu ka mid ahaa ragga soo dhoweyn jirayna kuwa ahaayeen wa kaana alquraa'u ragga xufaadda ah waxay ahaan jireen ragga culamada ah qura' la dhihi jiray leanna qofka qaariga saxaabada ridwanullahi calayhim berigoodii ee qur-aanka xifdisanu cilmiguu xifdisanaa leanno cilmi qur-aanka macnihii waxay baran jireen lafdiisa keliyon mayna xifdihi jireene macnihiisi iyo wax alla wixii ku saabsan oo dhan bay baran jireen marka qofka xaafid alqur'aanki wuxuu ahaa qofka dadka ugu cilmi badan buu ahaa wa kana alquraa'u asxaaba majlisi cumara wa mashhuuratihi radia allahu canhu ragga xufada qur'aanka waxay ahaan jireen majliska cumar ragga jooga ee ula tashado barlamaan kale marka ma aanu lahayn kuhuulan kaanuu aw shubbaana ama ha ahaadeen garmadoobayaal iyo waayeella ha ahaadeen ama dhalinyaro ha ahaadeene faqaala cuyaynatu libni akhiihi cuyaynatu bn xusn wiilku walaalkii dhali ku yidhi ya bna akhi war akhi adeer laka wajhun cinda hada alamiir faاsta'din lii calayhi iiga idin dalb soo idin qaad aan u taga faاsta'dana lahu ou idin dalbay faadina lahu cumar radi allahu canhu cumar baa idnay falamaa dakala markuu soo galay buu qaala wuxuu yidhi hiya bna alkhadaab haye ina khadaabow fawallahi ma tucطina aljazla wax weyn nama siisid walaa taxkumu fiina bilcadli cadilnima naguma xukuntid faqadiba cumaru radi allahu canhu waa cadhooday xataa hama an yuuqica bihi ilaa uu ku hamiyey inuu ciqaab ku dejiyo faqaala lahu alxur bna qays baa wuxu uhi ya amiira almu'miniin in allaha tacaala qaala linabiyi salى allahu alayh wali wasalam khud ilcafwa waamur bilcurfi waacdil can iljaahiliin saasuu alla ku yidhi waacrid can iljaahiliin askooda cafis qaado oo khayrkana dadka far oo iskaga jeedso oo ha ka ficil qaadanin kuwa makasta ah waina hada min aljaahiliin kana jaahiliintu ka mid yahay wallahi ma jaawazaha cumaru radia allahu canhu xiina talaaha calayhi ma aanu dhaafin cumar waa ku joogsada waa ku qaboobay wa kaana wuxuuna ahaa cumar radia allahu canhu waqaafan cinda kitaabi illah kitaabka alle kii ku joogsada ee kolkii loo soo daliiliyo ku qanca buu ahaa rawahu albukhaari waana soo maray raqam 50 ayaan ku soo maray wa can abi saciid samurata bni jundubin radia allahu canhu qaala laqad kuntu calaa cahdi rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam gulaaman waqtigii nebiga sala allahu alay wasalam waxaan ahaa wiil dhalinyaraa baan ahaa fa kuntu axfadu canhu waa ka xifdin jiray axaadiidtiisa iyo wuxuu aqriyay qur-aanka iyo famaa yamnacunii min alqowl inaan hadhadlo oon cilmi sheego iima diidayo hadda ilaa ana haahunaa rijaalan hum asanu minii ilaa inay halkan kada joogaan beledka kada aan ku noolahay ay joogaan rag iga da'waaweyn mooyaan raggaasaan ku xurmaynaya marka cilmiga sheegiddiisa iyo aqrintiisa ayuu wuxuu leeyahay rag iga da'weyn baa jooga oo cilmi waan aqaanaayo waqtiga nebiga sal ly slam nin dhalinyaro waxgarad oo xifdiyaya baan ahaaye raggaasaan ku xurmaynaya cilmiga marka fadwadiisii iyo tadriiskiisii iyobuu ku xurmaynaya oo u daynaya raggaas iyaga muttafaqun calayh wa can anas radi allahu canhu qala qala rasul lah sal ly slam ma akrama shaabun shaykhan bisinihi ma maamuuso nin dhalinyarihii oday ma maamuuso da'diisa daraaddeed uma maamuuso ilaa qayada allahu lahu alla wuxuu u qoondeeyaa oo yani u diyaariyaa man yukrimuhu qof maamuusa cinda sinihi kolkuu da'aysto qof maamuusa alla u diyaariyaa rawahu tirmidi wa qaala xadiidun gariib xadiidka gariibka waxaa la yidhaahaa fardina waa la yidhaahaaye midka uu qof keliyihii weliya baa la yidhaahaa xadiidka noocaas oo kale ihina ee qof keliyihun uu la infiraadayna gaaliban waa daciif marka xadiidkan ona noocaasu ka mid yahayo waa daciif oo kolkuu alimaamu tirmidi radi allahu canhu uu leeyahay xadiidkan kada waa gariib wuxuu ka wadaa xadiidku waa daciif oo asheikh alalbani ضacafahu fi ضaciif الjaamiع الصغيir wa fi silsilaة اlaxaadiiث الضaciifa wa fi غayriha wuxuu ku daciifayna marka waxaa weeyaan
sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaaho yaziid ibnu bayaan alcuqayli wahuwa daciif daciif weyn qofka isaga ka wariyeyna waxa weeyaan waa aburijaal nin la yidhaho aburijaal alansaari weeyaan oo aburaxaal aburijaal daciif wiilkiisa daciif aburaxaal alansaari yaa ku jira isaguna daciif weeyaan laba nin oo daciifa marka xadiidka ku jirta xadiidku waa daciif baabu ziyaarati ahli اlkhayri wa mujaalasatihim wa suxbatihim wa maxabatihim wa طalabi ziyaaratihim wاdducaa'i minhum wa ziyaarati almawaadic alfaadila ziyaarada la ziyaarto la booqdo dadka ahlu khayrka ah culammada iyo dadka muxuu ahay zaahidiinta iyo wariciinta iyo ahlu taqwaha iyo mujaahidiinta iyo dadka ahlu khayrka ah oo la ziyaarto iyo in lala saaxiibo lala jiro in lala fadhiisto oo majaalistooda la laazimo in la jeclaado in laga dalbado inay soo ziyaartaan na soo ziyaaro noocma oo la yidhaaho iyo in laga ducaysto ii ducee la yidhaaho iyo meelaha khayrka leh ee fadliga leh ee cibaadadoodu ay meelaha kale ka duwan tahay oo la ziyaarto meelaha markaa sharciga ay ku sugan tahay inay cibaadadoodu dheeraan meelaha kale ay ka leedahay sida saddexda masjid iyo oo kale iyo masjidu quba iyo meelahaas oo kale meelahaas in la tago oo lagu soo cibaadaysto qaala allahu tacaala waid qaala muusa lifataahu laa abraxu xataa abluga majmaca albaxrayni aw amdiya xuquba markuu muuse ku yidhi fatihiisii yani khaadimkiisii yuushac ibnu nuun ahaa laa abraxu kama zuulayo yani inaan socdo baanan ka zuulaynin xataa abluga ilaa aan ka gaadho majmaca albaxrayni labada badood meesha isaga yimaadaan meesha labada badood iskaga daraan waldayga ilaa aan ka tago labadaa badoodee la sheegayo kuwa ay yihiin sida xaqiiqadaa la garan maayo laakiin waxaa loo malaynayaa inay yihiin labada gacan ee khaliijulcaqaba iyo khaliiju suways la yidhaaho meesha ay badda cas ee muxuu ahaayey kolkay kusoo darayaan ay isaga yimaadaan inay halkaa taha loo malaynaya leannu riwaayaadka xadiidka qaarkiisba waxay dhahaysa doonidii ay fuuleen ee meesha ay ka fuuleen inay ahayd mid isaga gudubta oo galabtiina xaggan usoo gudubtaa aroortiina xaggan usoo gudubta bay ahaan jirtay marka bad yar bay ahayd dhan kalena waa suurowdaa in ay labadaa badood laba webi ay ahaayeen leanno xadiidka ubay ibni kacb radia allahu canhu waa ka sheegaya in shimbir yaroo cusfuurihii doonida qarkeeda intuu ku joogsaday badda uu kabaday biyo ka kabaday marka badda biyaheeda la cabi karaana marka waa badda macaani webiyaalka weeyaan marka meesha dilta la yidhaahee labada niilku uu ku kala baxo halkaa inay yihiin iyaduna waa iska suurooda xataa abluqa ilaan ka gaaro majmac albaxrayni labada badood meesha isaga yimaadaan iskaga soo daraan aw amdiya ama aan socdo xuquban waqti dheer zaman dheer ilaa qowlihi tacaala marka muusa calayhi salaatu wasalaam sababku wuxaa sida xadiidka uu ubay ibni kacb uu sheegayo muusa maalin khudbeeyo banu israa'iil u khudbeeyo khudbe aad iyo aad u cajab badan oo baliiqa ayuu ku hadlay markaasay dadka jeclaysteen markaas waxaa la weydiiyey muusow wax kaa cilmi badan ma taqaanaa inuu adduunka joogo markaasuu yidhi maya markaas ayaa alla ku canaantay oo kolkuu cilmiga isaga usoo celin waayo allahu aclam uu dhihi waayey oo markaasaa muxuu ahayey uu yidhi addoonka iyaga khadir ah yaa kaa cilmi badan markaasuu yidhi xagguu jooga markaasaa la yidhi labada badood meesha isaga yimaadaan yaa jooga saan u heli karaa buu yidhi markaasaa la yidhi mallay qaado oo dimbiil ku qaado oo meesha aad ku weydo halkaasuu joogaa marka qisadoodii waata qisada alsha markuu maqlay adduunka hal nin oo ka cilmi badani inuu joogo buu ninkii u xereeyey suu cilmiga uga soo barto ilaa qowlihi tacaala waqaala lahu muusa muusa ku yidhi khadir hal attabicuka maku raaca calaa an tucallimanii inaad iga barto mimaa cullimta wixii lagu baray rushdan waxaan ku hanuuno oon ku camalfalo khayrka ku barto wa qaala tacaala wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi yuriiduuna wajhah waa addii aan soo marray
وعن أنس رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه لcمر رضي الله عنهma أبو بكر baa cمر ku yidhi رضي الله عنهma بعda وفاة رasuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم انطلق بنا ina bxi إلى أmi أيمن أmi أيمن xaggeeda inoo bixi رضي الله عنها أmi أيمن aan aadno نزuuرha aan زiyaarano كama kaana رasuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم يزuuرha siduu rasuulka alle u ziyaaran jiray marka rasuulka sal اه عlay slm hooyo oo kale ayuu u dhaqaalin jiray waa xaadinadiisii soo korisay markaas kolkuu dhintay nebigu sal ه عlay slam bay sidii iyaguna ziyaaradeedii ay u joogteeyeen falamaa intahayaa ilayhaa markay u yimaadeen yay bakad oyday faqaala laha waxay ku yidhaaheen maa yubkiiki maxaa kaa ohinaya amaa taclamiina miyaadan ogayn ana maa cinda allahi khayrun lirasuuli اllahi salى allahu alayh waalih wasalam waxaa alla agtiisa khayr iyo nicmaa rasuulka allah inaan wax dhibaatihii gaadhin oo adduunyada uu ka raystay oo janno iyo khayr uga fiican u aaday soo ma ogid maxaad u ooyeysaa faqaalat markaasi waxay tidhi innii laa abki anigu lama ooyayo annii laa aclamu inaanan ogeyn daraaddeed lama ooyayo ana maa cinda allahi tacaala khayrun lirasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam waxaa alla agtiisa khayr iyo nicmiya janno ihi inay rasuulka alle u fiican tahay inaanan ogeyn lama ooyayo walaakinii abkii waxaase la ooyayaa ana alwaxya qad inqataca min aلsamaa waxyigii noo imaan jiray samada nooga soo degi jiray cusbaayo inuu naga go-ay taasaan la ooyayaa fahayajadhumaa waxay ku dhaqaajisay ku kicisay cala albukaa oohin fajacalaa yabkiyaani macahaa waxay bilaabeen inay la ooyaan rawaahu muslim marka waxay xusuusisay meel aan iyagu milicsaninba iyadu milicsatay markaasi kolkay u sheegtay ayay iyaguna la ooyeen markaa ulajeedadu waa kaas waa ay way ziyaarteen marka dadka ahlu khayrka ee la ziyaaranayo inay laba kala nooc yihiin waa iska suurowdo rag iyo haween muxua nin saalix ah ay haween salaam ugu tagaan islaan saalixad ah oo ahlu khayr ah ay rag salaam ugu tagaan waa suurowdo dadkaasu inay dadka wax ziyaaranaya inay dad madaxa ay kolkaa yihiin oo dad racyadoodii ka mida ay salaaxooda daraaddi usoo salaamayaan rawaahu muslim وعn abi هurayرaةa رadي الله عanه عن النبي صلى اه عليه وسلم أna رaجuلا zaara أخan lahu fي qaryaة أخرى nin ummadihii hore ah baa walaalkiisa yani oo diinta ugu walaal ah oo qaryo kala degan ayuu ziyaaro ugu tegey faarsada allahu tacaala alla wuxuu usii dhigay calaa madrajatihi ariiqiisii malakan malag jidkuu soo marayey uu malag alla usii dhigay nin iska dhigay falamaa ataa calayhi markuu soo maray buu qaala wuxuu yidhi ayna turiid xageed rabtaa qaala uriidu akhan lii fii hadihi alqarya waxaan rabaa walaalkay ahoo qaryadan degan qaala markaasuu yidhi hal laka calayhi min nicmatin tarubuhaa yani aada buunbuuninayso o dhaqaalinayso ma jirtaa waxa aad u tartay oo hadda ka hor aada u tartay oo inuuna ilaawin aada rabto oo iyada daraaddeed aad salaamta ugu badinayso oo ha xusuusnaado had iyo gooroo liibha kuugu haya aada leedahay mitaas ma jirtaa qaala laa maya hayra annii axbabtuhu fi llaahi tacaala dar alla un baanu jeclaa qaala markaasuu wuxuu yihi malagiina fa innii rasuulu llahi ilayka waxaan ahay rasuul alla kuu soo diray oo biana allaha qad axabaka kamaa axbabtahu fiihi yani fi llah inuu alla kuu jeclaaday si isaga adiguba dartiisa aada ugu jeclaatay ninkaa inuu kuu jeclaaday inaan kuu sheego yo alla igu soo kaa diray rawaahu muslim isla mar labaad buu soo celin doonaa raqam 379 buu kusoo noqon doonaa mar aan fogeyn qowluhu arsadahu likada yuqaalu arsadahu likada idaa wakalahu bixifdihi hadduu shayga ilaalintiisa aada ugu tala gasho irsaadkaasaa lagu magacaaba wاlmadrajaةu bifatxi اlmiim muxuu ahaa waraa aariiq jidka weeyaan madraj bay hadda ku magacaabaan aan taa lahayn oo gaar ahaan waxaan jidadkan dayaraduhu ay ka duulaane ranwayga iyo afka qalaad ku yidhaahaan kaasay madraju طaa'ira ay yidhaahaan wa macnaa tarubuhaa taquumu bihaa wa tascىa fii salaaxihaa mid aada ilaalinayso oo hagaajinteeda iyo wanaajinteeda aada u shaqaynayso ma jirtaa buu ka wada marka wax sabab ahoo kale oo ninkan u ziyaaranayaa inaanu jirin markuu ogaaday kolkaas u bishaareeyey wa canhu radia allahu canhu yani an abi hurayra radi allahu anhu qala qala rasul lah sl ly slam man caada mariidan qofkii booqda qof jiran aw zaara akhan lahu fi llah ama ziyaarta
walaalkiisa dar alle u ziyaarta naadaahu munaadin qof dhawaaqaya malag ama khalqi kale wuxuu yahay baa u dhawaaqaya oo dhahaya bian tibta wataaba mamshaak waad wanaagsan tahay oo socodkaaguna waa wanaagsan yahay watabawa'ta waxaad ka degtay min aljanna manzilan boos baad jannada ka qabsatay jannada boos baad ka qabsatay buu ku dhahaya rawaahu التirmidي وqala xadiiث xasan وفي bعضi نسخ غarيb xadiiث xasan غarيb sidaas yidhi xadiidkuuse markaa waa xasan oo الشheekh الألباني xafiظah الlah isna waa xasan buu ka dhigay في صحيح الجامع الصغير iyo صحيح sunan التirmidي iyo وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح jaliiska الصaalح jaliiska waa kan nidhi waxaa la yidhaahaa qofka la fadhiya mujaaliska waa faciil bimacnaa mufaacil qofka la fadhiya saaxiibkaa la sheekaysanaya iyo wa jaliisi suu jaliiska xuni waxay la kala mid yihiin ka xaamililmiski sidii qof miski sida waa kii hore wa naafiki lkiir iyo qof buufimo afuufaya labadaasay la kala mid yihiin marka qof wanaagsan oo ahlu khayra qofka la fadhiyaayo qof miski haysta qof la fadhiyuu la mid yahay oo had iyo goor nafci kama waayayo qofka qof xun oo faasiq ah la fadhiyaana wuxuu la mid ka dhigan yahay qof tumaal waabki fadhiya fa xaamilu lmiski qofka miskiga sidaayu ima an yuxdiyaka inuu wax kaa siiyo ku hadiyeeyo dhaladan ku siiyo ama uu kuu mariyo wa ima an tabtaaca minhu inaad wax ka iibsato wa ima an tajida minhu riixan طayiba inaad caraf wanaagsan ka hesho oo alaabtiisaas uu iibinayay muxuu ahaye carafteeda iyo laydheeda un inay ku soo gasho wa naafiqu lkiir buufimaha ka afuufayaana ima an yaxriqa hiyaabak inuu dharkaaga gubo oo dambaaburada uu duulinaya ku gubo wa ima an tajida minhu riixan muntina inaad muxuu ahaye ur xun iyo dambas iyo waxyaalaha uu shiilayo iyo geeska iyo waxyaalahaas iyo ur iyo qiic inuu kaaga soo baxo dhibaatan baad hadiya goor ka waayinin متفق عليه ويحdيka يعطيك وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع naagta waxaa loo guursada afar yani dadku naag kolkay guursanayaan afar arrimood midun bay ka fiiriyaan limaalihaa xoolaheeda walixasabihaa iyo dhalashadeeda walijamaalihaa iyo quruxdeeda walidiinihaa iyo diinteeda cifadeeda iyo muslimnadeeda iyo xijaabka ay qaadatay iyo suraadda iyo adabteeda afartaa midun bay ka fiiriyaan dadku fadfar ku guulayso bidaati diini midda diinta leh taribad yadaaka gacmahaaga caroobe carabada ku dhige taribad yadaaka yani arigaa ihi arig kolkiisa hor waxaan jiray habaar ah oo iftaqarta maxaanuu ka dhigan yahay ciidda gacanta la galo waxaad qaadawa laakiin wuxuu iska noqday arrin oo la iska afqabsado canaan noqda ama waxaaba weeyaan haddaad saa yeeli weydo faqiir allah kaa dhigo ama faqiir baabaad noqonaysaa muttafaqun calayh wa macnaahu ana annaasa yaqsiduuna fi lcaadati min almar'a min hadihi alkhisaal arbaca marka yani waxaa weeyaan dadka buu ka warramayaayo dadku sida qaalibka iyo caadada ah naag markay dooranayaan afartaa meelood midun bay ku doortaan faxris anta adigu ku dadaal qofya muslimkii calaa daati ddiin inaad hesho wadfar bihaa ku guulayso waxris calaa suxbatihaa inaad kula jirto oodan weligaa furin ku dadaal wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala qaala nabiyu sala allau alay slam lijibriil nabiga wuxuu ku yidhi jibriil ku yidhi kanu marka waa ziyaaradii laga dalbanaya nasoo ziyaara la dhihi jiray maa yamnacuka an tazuuranaa akara mima tazuurunaa maxaa kuu diidaya inaad noo timaado intaad noo imaanaysa in ka badan imaatinkaaga jecel lahay maad aada noogu timaadin fanazalad markaasay soo degtay wamaa natanazalu ilaa biamri rabbik lahu maa bayna aydina wamaa khalfana wamaa bayna dalik wamaa kaana rabbuka nasiya wamaa natanazalu kuma soo degno ilaa biamri rabbika rabbiga amarkiisa mooyaane lahu rabbi wuxuu leeyahay maa bayna aydiina waxa naga horeeya wamaa khalfanaa iyo waxa naga dambeeya wamaa bayna dalika intaa waxa udhexeeya wamaa kaana rabbuka nasiya rabbigaana kuwa xilowsan ma aha marka anagu iskama nimaadno khiyaar ma lihine makhluuqaad waxaan nahay alla amarkiisa ku socda weeyaan waxaa rawaahu albukhaariy وعn أbي سعيid الخdري رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال
laa tusaaxib ilaa mu'mina walaa yakul طacaamaka ilaa taqiy hala rafiiqin qof mu'mina mooyaane cuntadaadana yaanu cunin qof taqiyo alla ka baqaa mooyaane rawaahu abu daawuud watirmidiyu biisnaadin laa ba'sa bihi laa ba'sa bihi marka kole hadduu leeyahay macnaha waxaa weeyaan waa tawhiiq fiihi shay-un min alliin uu ku jiro marka xadiidku xasan weeyaan oo sheekh albani xadidka xasan buu ka dhigay xadiidka waxaa kaloo wariyeyna axmed iyo ibnu xibbaan iyo xaakim ayaa wariyey oo wuxuu xasan kaga dhigay sheekh albani saxiix aljaamic sagiir wa mishkaat almasaabiix wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sal ly slm qaala lirajulin wuxuu yihi alrajulu calaa diini khaliilihi qofku widaygiisa diintiisu ku jira falyandur axadukum midkiin waliba ha ka fiirsado man yukhaalilu qofku la rafiiqayo la saaxiibay qof waliba diinta iyo caadada iyo dhaqankii siduu saaxiibkiisu yahan buu noqonayaa qof walba marka ka fakir qof xun baad la rafiiqaysa qofkaad aragtaba iska raacay rawaahu abu daawuuda watirmidiyu biisnaadin صaxiix waqaala tirmidiyu xadiiثun xasan wa huwa kama qaal waa sida uu yidhi sheekh اlalbani saxiix aljaamic sagiir buu ku saxiix yeelay ee ku xasan kaga dhigay wa can abi muusa alashcariy radia allahu canhu ana nebiya sal l qaal almar'u maca man axaba qofku jecel yahay ayuu la jirayaa muttafaqun calayhi isagoo xadiid dheer ah xadiidkii safwan ibni casaal ee dheeraa ee qadcadantada iyadoo ka midana waa inoo soo horumartay raqam 19 xadiidkan kusoo maray xagga hore ah xadiidkuna waxa weeyaan wuxuu mar labaad ku imaan doonaa 370 lambarka ah wa fii riwaayatin qaal qiila lلnabiy sal ly slm nebiga waxaa lagu yidhi alrajulu yuxibu اlqowma walamaa yalxaq bihim ninka oo jecel niman jecel aan soona gaadhin qaala markaasu wuxuu yidhi almar'u maca man axaba intanuna xadiidkaasay ka mid ah xadiidkii safwan ibn casaal radia allahu canhu wa can anasin radia allahu canhu ana acraabiyan qaala lirasuuli llahi sala allau alay slam mata saaca nin reer baadiyaa ku yidhi nabiga sal l slm waa goorma qiyaamuhu qaala rasul lah sal l slm markaasu rasuulka alla yidhi maa acdadta laha maxaad u diyaarisay waa dhacaysaaye waa lagama maarmaanay maxaad u diyaarisay qaala markaasuu yihi xuba allahi wa rasuulihi alliya rasuulkiisa jacaylkooda un baan u diyaarsaday taasaa ma lagu talagalay qaala markaasuu nebiguna yidhi sal lla alay slam anta maca man axbabta adugu dadka aada jeceshahay kuwa aada jeceshahay baad la jiraysaa marka rasuulka alle haddaad jeceshahay rasuulka alle ad la jirtaa muttafaqun calayhi wa hada lafdu muslim wa fii riwaayatin lahuma yani lilbukhaari wa muslim maa acdadtu laha min kahiiri sawmin walaa salaatin walaa sadaqa anu ma aanan ugu talagelinoo ma aanan u diyaarsanin wax badan oo sooma iyo ku salaad iyo sadaqa iyo midna walakinii uxibu allaha warasuula alihi rasuulkiisaan jeclahay anas baa marka wuxuu dhihi jiray radia allahu canhu markuu xadiidkan kada wariyo wuxuu dhihi jiray sidaan ugu faraxnay xadiidkaas sidaan ugu faraxnay inuu jiro leanno annaguna waan jecel lahay alihi rasuulkiisa waan jecel lahay markaas weliba wuxuu kusii dari jiray fa ana uxibu rasuula allahi wa abaa bakrin wa cumara radia allahu canhuma lacallii inaan darajadooda alla igu gaadhsiiyo walow aanan camalkooda oo kale aanan lahayn wa can ibni mascuudin radia allahu canhuma marka qofkii jeclaada khalqiga alle wanaagsan ee rasuulka sal ly slam iyo ambiyadii alle calayhim salaatu wasalaam dhammaantood iyo saxaabadii iyo raggii mujaahidiintii iyo a'immadii iyo raggii qofkii jeclaada macooduu noqonaya qofka jecel faasiqiinta muxuu ahaayey heesayaalka iyo kuwan beladan muxuu ahaayey sida oo kale marka waxaa weeye qofkii jecel dad xun oo faasiqiin ah sida kuwa jecel kuwa ciyaartooda iyo fanaaniinta iyo waxyaalahaas iyo ortimahaasooda u samaysta dharkiisooda u fasisha iyo waxyaalahaas oo kale inay iyaga oo kale la nooc noqonayaan oo in baqo lala soo xashirin doono dadkiisa uu jecel yahay وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الفضة الذهب والفضة dadku waa hidooyin iyo asalle ayay kala yihiin sida dahabka iyo fidaduba ay macaadin u yihiinoo meela dahabka laga qoto oo dahab uu ku aasan yahay iyo meelo fida laga qoto fida ay ku samaysan tahay
iyo meelo kale oo waxyaalo kale macadin ay ku jiraan siday u kala yihiin sidaasay dadkuna sidaasoo kale ayay dadkuna usuul u kala yihiin oo dad wanaagsan iyo dad xun kuwa dhexdhexaada sidaasay kala yihiin khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaami idaa faquu kuwoodii jaahiliyadii ugu akhyaarsanaa ayaa kuwooda islaamnimadana ugu akhyaarsan ah hadday kasmaystaan oo diinta ay bartaan intaana iyadana hadda ka hor baynu soo marray xadiid nebiga sala allahu alayhi waalihi wasalam la weydiin jiray man akramu nnaas markuu ka jawaabayey ugu dambaystii ee uu fahmay waxay ula jeedaan inuu carabta usuusheedii waxyaalaha inay wareysanayaan sidaas oo kale. So inshallah subscribe to my YouTube channel Hoy Somali. Subscribe, follow and share Hoy Somali on Facebook.